xuska sanad guuradii 96 ee ka soo wareegatay aasaaskii dalka Turkiga ayaa lagu qabtay safaaradda Turkiga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho 29 Oktoobar 1923 ayay ahayd markii dhidibada loo taagay dalweynaha Turkiga ah waxaana ka qayb galay munaasabadda lagu qabtay safaaradda gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha golaha aqalka sare wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyayaasha ciidamada waxaa sidoo kale munaasabadda ku sugnaa safiirada wadamada ay saaxiibada yihiin Turkiga iyo Soomaaliya safiirka Turkiga ee Soomaaliya u fadhiya Maxamed Yilmaz oo furay munaasabadda ayaa ka hadlay waxyaabaha dalka Turkiga iyo Soomaaliya ay wadaagaan isaga oo sheegay in Turkiga iyo Soomaaliya xiriirkoodu uu ahaa mid soo jireen sanadihii la soo dhaafay gudoomiyaha golaha aqalka sare Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay Turkiga waxyaabihii uu Soomaaliya u qabtay inay tahay mid aan la iska indhatiri karin Turkigana uu uga mahad celinayo taageerada ay siiyaan Soomaaliya isagoo ugu hambalyeeyay sanad guuradii 96 ee Turkiga uu gaaray Soomaaliya iyo Turkiga saaxiibtinimadoodu ha waarto Turkiga ha guulaysato waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin sagaal guurada aad gaarteen ee xorriyad iyo midnimo iyo horumar aad ku gaarteen aad iyo aad baad u mahadsantihiin idinkuna raalliga ahaada gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa akhriyay khudbad madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wakiil uga ahaa oo looga hadlayay waxqabadka Turkiga iyo sida Turkigu uu Soomaaliya saameyn ugu leeyahay anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wadana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo anoo ku hadlaya magaca golaha shacabka ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo midka shacabka Soomaaliyeed waxaan u hambalyeeynaa dawladda Turkiga iyo dhammaan dadka reer Turkiga munaasabadda sanad guurada ka soo wareegtay 96aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay Jamhuuriyadda Turkiga shacabka Turkiga iyo shacabka Soomaaliyeed waxay wadaagaan xiriir soo jireen oo taariikhi ah oo ku salaysan is-ixtiraam is-aamin iyo saaxiibtinimo